wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena subaxnimada waxaa ka mid ah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo qadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyo arrimaha ay ka wada hadleen oo la ogaaday iyagoo ka wada hadlay arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale arrimo kale oo xasaasi ah. haddaba maxay yihiin arrimahaasi qodobadeena ayaan si fiican ugu faahfaahin doonaa inagoona waliba ku dul istaagi doonaa arrimaha ciidamada iyo sidoo kale dib u dhiska ciidanka cirka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo labada madax ka wada hadleen. qodobada kale oo aan wararkeena ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah wakiilo u joogay xisbiga UBA oo gudoomiyaha ku yahay Xasan Sheikh Maxamuud maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo la soo ceyriyay kadib markii dhowr xafiis oo ay leeyihiin albaabada la isugu dhuftay. madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayaana ku wargeliyay Xasan Sheikh Maxamuud iyo xisbiga UBA inay xafiisyadooda si toos ah isaga xiraan maadaama aan looga baahnayn deegaanada Koonfur Galbeed oo carqalad iyo ammaan darri ka abuureen siyaasiyiinta u ololeynayay madaxweynihii hore ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud. sidoo kale madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo la ogaaday inuu dowladda federaalka Soomaaliya ka rabo jago aad u sareysa. haddaba maxay tahay jagadaasi ra'iisul wasaare mase madaxweyne? wararkeena ayaan si toos ah ugu soo qaadan doonaa inagoona dul istaagi doonaa halka uu madaxweyne Qoorqoor ku taamayo inuu ka qabto jagooyinka dalka kuwooda ugu sareeya iyo waliba cidda ku gacan siinaysa oo aan doonayno inaan ku soo bandhigno barnaamijkeena saaki. dhinaca kalena dagaalka u dhaxeeya Ukraine iyo Russia oo faraha ka sii baxaya iyadoona la isu adeegsanayo hubka noocyadiisa ugu dambeeyay iyo dalal kale oo dagaalka soo galay oo ay ka mid tahay dowladda Mareykanka, Shiinaha iyo Turkiga. haddaba dagaalkaasi muxuu salka ku hayaa yaasa ku gacan sareyn doona ayaan barnaamijkeena ku qaada dhigi doonaa iyo xaaladda Itoobiya oo hadda soo laba kacleynaysa deegaano cusub ay kala qabsadeen maamulka Tigray iyo dowladda federaalka ee Itoobiya. qodobada ay kuwa kale oo xiiso badan ee barnaamijkeena subaxnimo ku daawan doontaan fadlan daawada haddii ay tahay marka koobaad aad soo booqato channelkeena subscribe oo furo gambalka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena. mahadsanid. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa kulan qadka taleefanka ah la qaatay madaxweynaha dalka Russia iyagoona ka hadlay arrimo aad xasaasi u ah oo ay ka mid yihiin arrimaha ciidamada dib u dhiska ciidanka cirka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. dowladda Russia iyo Soomaaliya ayaa dhawaanahan waxaa ka dhaxeeyay heshiis aad u sareeya kadib markii madaxweyne farmaajo uu soo nooleeyay heshiiska dalal badan oo ka mid ah kuwa ugu awoodda badan caalamka. madaxweyne farmaajo ayaa kala hadlay madaxweynaha Ruushka heshiis ay dhawaan kala saxiixdeen labada dal oo ka mid ah dib u dhiska ciidanka cirka iyo in dowladda federaalka ee Soomaaliya laga gacan siiyo dhisidda ciidanka qaranka gaar ahaan kuwa cirka oo dhawaan madaxweyne farmaajo doonayo inuu boorka ka jafo. ciidanka cirka warbixintooda ah in dib loo dhisi doono ayaa soo baxday dhawaanahan iyadoo dhawaan taliyaha ciidanka cirka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya diblabeelood uu sheegay in ciidanka cirka la tayeyn doono. dhawaan ayay ahayd markii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay heshiis la saxiixatay ciidanka cirka dowladda Pakistan sidii loo horumarin lahaa ciidanka cirka Soomaaliya oo hadda ah midaan awood iyo tayo intaba lahayn. madaxweyne farmaajo ayaa muddo ku taamayay inuu hawshan qabto balse bilowgeeda ayaa bilaabanaya iyadoo tababaro loo qaadayo ciidankii ugu horeeyay ee dalka Russia lagu soo tababari doono arrimaha ciidanka cirka iyadoo saraakiishan lagu wado in la qaado 19 bisha February ee sanadka soo socda. sidoo kale madaxweyne farmaajo oo qadka taleefan kula hadlay madaxweynaha dalka Russia Vladimir Putin ayaa si la sheegay ka codsaday in dowladda Russia ay ka gacan siiso dib u dhiska ciidanka cirka gaar ahaan ay ku taageerto diyaarado iyo hubka nuuciisa ugu dambeeyay walow Soomaaliya ay saaran tahay cunaqabataynta hubka oo qaramada midoobay saartay burburkii kadib. arrintan ayaa la rajeynayaa inay dhawaan howlgasho oo ciidamada cirka dowladda federaalka ee Soomaaliya boorka laga jafo iyadoo dowladda federaalka ay ka gacan siinayaan dowladda Pakistan, Turkiga iyo Russia.
dhinaca kalena wararka gudaha oo aan idiin haynana waxaa ka mid ah xafiisyo ay lahaayeen xisbiga UPA ee ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa la sheegayaa in la xiray iyadoo sidoo kale xabsiga loo taxaabay qaar ka mid ah wakiilada xisbigaasi oo la sheegay in qalalaas ka geysteen magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed. wakiiladan ayaa la sheegay in uu ololeynayeen Xasan Sheekh Maxamuud balse beddelkeeda ay wadeen qalaaso ka dhan ah in Bob ay ka sameeyaan kuraasta maamulka ee taala magaalada Baydhabo. qaar ka mid ah wakiilada xisbiga oo la xiray ayaa la sheegay in qaarkood lagu soo daayay wada hadal halka kuwa kalena xabsiga ay wali yaalaan. sidoo kale madaxweynaha lafta gareen ayaa la sheegay inuu si toos ah ula xiriiray Xasan Sheekh Maxamuud isagoo ku wargeliyay inuu joojiyo qalaasaha uu ka wado gudaha dalka gaar ahaan magaalada Baydhabo ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed. sidoo kalena uu dib ula laabto howlaha uu ka wado gudaha maamulkaasi xafiisyadiisana si toos ah loo xiri doono. shalay ayay ahayd markii wakiilada xisbi uu leeyahay Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaarihii hore laga soo kala ceyriyay magaalada Kismaayo xafiisyadoodana albaabada la isku dhuftay iyadoo Axmed Madoobe uu sheegay qof aan siciidan ahayn inuusan ka ololeyn karin ama aan looga ololeyn karin magaalada Kismaayo ee xarunta kumeelgaarka ah ee maamulka Jubbaland. arrintan ayaana ah arrin hadda soo ifbixaysa kadib markii maamul goboleedyada ay ka soo xirteen albaabada midowga musharaxiinta oo hadda magaalada Muqdisho ka wada khas iyo burburin iyagoo dareemaya kalsooni darro aad u daran oo dhanka doorashooyinka ah kadib markii madaxweyne Farmaajo uu guulo hordhaca ka soo hooyay doorashooyinka xildhibaanada kuwoodii ugu dambeeyay oo ka dhacay magaalada Kismaayo, Dhuusamareeb, Garowe iyo sidoo kale Baydhabo. dhinaca kalena dalka Itoobiya ayaa waxaa ka bilowday dagaal cusub oo hor leh oo sida muuqata ka awood badan dagaaladii hore u dhacay iyadoo maanta kaliya ay Tigray qabsadeen laba magaalo oo aad u waaweyn. dagaalkan ayaa la sheegay in Tigray dib ka soo bilowday kadib markii dowladda federaalka Itoobiya ay ka baxday xabad joojintii ay ku dhawaaqday qaramada midoobay. Tigray ayaa ku sheegtay dagaalkan inuu yahay kii ugu dambeeyay oo ay ku soo afjari doonaan xukuumadda uu hogaamiyay Abiy Ahmed kadib markii ay burisay heshiiskii ay qaramada midoobe dhex dhigtay ee xabad joojinta ahaa. Tigray ayaa ku eedeysay dowladda federaalka ah ee Itoobiya inay ku kacday burinta heshiiska kaas oo ah inay joojisay deeq-bixiyaal caalami ah kuwaasi oo doonaya inay tabarucaad gaarsiiyaan qaar ka mid ah gobollada Tigray oo lagu baabiyay dad shacab ah aadna ay xaaladdu ugu liidato. kadib markii dowladdu baajisay diyaarad nooca gargaarka ah oo ku degi lahayd magaalada Maqale ayay Tigray dagaal ku qaadeen deegaan ka mid ah dhulka Amxaarada waxayna ka qabsadeen laba magaalo oo aad u waaweyn taas oo dagaalka dib mar kale ugu bilowday. Tigray ayaa 2 asbuuc ka hor ku dhawaaqday inay ka go'ayso dowladda Itoobiya kadib markii ay ku guuldareysteen inay gacanta ku dhigaan guud ahaan dalka Itoobiya. haddaba halkaa waxaa inagu eg wararkeena subaxnimo fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato janaalkeena Calanka TV subscribe oo furo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee wararkeena.